بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وافقنا لما تحب وترضى. xildhibaanada golaha deegaanka agaasimayaasha saxaafadda iskaashatooyinka caasimadda Hargeysa saxaafadda waxaan ku salaaminaa salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaan, maanta oo ay taariikhdu tahay 14 bishii shanaad ee 2014 waxa aanu iskugu yeernay iskaashatooyinka ka howlgala caasimadda Hargeysa oo ay ka mid yihiin iskaashatooyinka halkan fadhiya iyo kuwa maqanba. waxaanu ugu bishaareynaa oo ay ka mid yihiin iskaashatooyinka bacadlaha waaheen, iskaashatooyinka hilibka ee nafaqo, iskaashatooyinka khudradleyda waaheen, iskaashatooyinka bacadlaha gabanimo, iskaashatooyinka khudradleyda gabanimo, iskaashatooyinka ganacsatada suuqa gabanimo, ururka raiislayaasha, ururka hodheelada diyaal reeb, ururka xirfadlayaasha hodheelada barwaaqo barqad, iskaashatooyinka basaska waaweyn ee city bus, iskaashatooyinka basaska yaryar ee dalmar, iskaashatooyinka gaadiidka waaweyn ee tawfiiq, iskaashatooyinka dheynayaasha, iskaashatooyinka booyadaha, iskaashatooyinka geerashyada, iskaashatada bari iyo galbeeda basaska, iskaashatada kulli barqad, kulli iskaashatooyinka baqaarada ama ganacsatada. waxa aanu iskaashatooyinkaas oo dhan aanu ugu yeedhnay waxa weeye u diyaar garowga waxay nagu soo fool leh maalin qaaliya, maalin qiimo badan leh, maalintii Somaliland lagu dhawaaqay 1991 18 May. u diyaar garowga maalinta iyo weynaynteeda oo ay wax yar inaga xigaan ayaa waxaan u yeernay iskaashatooyinkii ka qayb galayay. waxa aanu ugu bishaareynaa horta oo u sheegaynaa dhammaan ganacsatada suuqyada waaweyn ee meheradaha ku soo jeeda laamiyada waaweyn in uu meherad kasta ama baqaar kasta laga bilaabo maanta ku calabka sudhnaa ee uu leerka quruxda badan ku xidhnaana ka sii siyaadiyo ka aanu sudhnayna. waxaan ugu bishaareynaa wixii caawa ka dambeeya meherada aanu aragno ee bilaalay iyo bilaacalana waxaanu ka qaadi doonaa liisanka ganacsi ee ay ku shaqaynayso meheradaas, mana ogolaan doono. waa meheradaha laamiyada ku soo jeeda. waxa kale oo aan ugu bishaareynaa in ay dadweynuhu muujiyaan qarannimada Somaliland, dadweynaha Hargeysa ku nool quruxdeeda muujiyaan, la rinjiyeeyo, guri kasta calan laga hortaago maalinta. waxa kaloon dadka u sheegayaa in la ilaaliyo nabadgelyada. ilaahay baa ilaaliya. feejignaan xukuumaddu way leedahay, waanu feejiganahay, laakiin nabadgelyadana ha la ilaaliyo. dadweynaha caasimadda Hargeysa ku nool waxaan leeyahay qof walba qofka kugu xiga ka warhay, guri walba guriga kugu xiga ka warhay. nabadgelyada ilaahay baa inoo ilaalinaya, innaguna waa feejignaanina haddii ilaahay idhaa. taa nabadgelyadana waa idugula dardaarmayaa. iminka shirkeenna jaraa'id baan inoo furayey. waxaan samayn doonaa halkan idinka tusi doonaa iskaashatooyinkii oo iskaashato waliba ay ku dhawaaqayso waxa ay kaga qayb gelayso 18 May. iyadoo ay ku samayn doonaan berri gelika dambana beerta xorriyadda haddii ilaahay idhaa.